waxaan soo dhaweynaynaa xildhibaan cabdulaahi goodax bare. xildhibaan soo dhawow, waqtiga ay qaado. بسم الله الرحمن الرحيم. marka hore waxaan salaamayaa walaalkay Faisal si gaar waxaan kaloo salaamayaa dhammaan madasha inta ku jirto. sidoo kale waxaan salaamayaa Camey oo mar walbaba isku hawlaya inuu mowduucyo wanaagsan oo halkan nagu kulmiyo. intaa kadib waxaan rabaa inaan mahad celiyo gudoomiye Faisal oo runtii caawa wax badan oo aan maqal jirnay si wanaagsan oo qurux badan loogu soo koobay. gudoomiye Faisal waxaan rabaa inaan haddaad ii ogolaatid aan kula qiro in muxuu ahaa xiriirkii iyo midnimo unionkii soomaalida waqooyi soomaalida koonfureed uu wax badan ka hadlaabeen ilaa uu maanta xadka uu joogo uu gaaray. inta badanna waxaan kugu raacsanahay eedda inay dhinaca koonfureed ka timid. haddee marka saa tahay maantana meesha ay joogto oo adiguna aad fasirtay dad badan oo kalena ay say doonaan u fasiraan. macquul ma tahay, su-aashayda waxa weye macquul ma tahay in sidii odayaashii reer sharafta lahaa calanka keenay ay haddana maantay muxuu ahaa unionkii dib u saxaan iyagoo markaas looga dambeynayo markan muxuu ahaa talada oo markaas suunayo in dib muxuu ahaa xiisadii ay u degto unionkiina uu sidaa kusoo noqdo. anigu kama hadlayo unionka union la-aanta faa'iidada kuma jirto, laakiin waxaan ka fiirinayo keliya unionka haddii la rabo in dib loo soo celiyo, haddii looga dambeeyo odayaashii awalba calanka keenay inay haddana keenaan. marka hadday macquul tahay in caasimadda hargeysa la geeyo, haddii confederation in la sameeyo ay tahay in la sameeyo, haddii muxuu ahaa in lagu heshiiyo waxyaalaha dhacay dadku sheega waxaa ka mid a in awooddii dowladnimo ee waqooyi keenay lagu takrifalay ilaa markii dambe waqooyi ay marti ka noqdaan muxuu ahaa dowladnimadii unionka ay marti ka noqdaan. marka lagu qeexo si cad loo qeexo wax yani cad oo lagu midoobayo in gogasha hargeysa la dhigo, hargeysana ay gogasha maamusho, fikirka iyo ajendahana ay keento. muxuu ahaa arrintaas see u aragtaa, macquul ma noqon kartaa inaba? saaxiib adoo mahadsan. wax hore waan ugu hadlay, waxaan ku yidhi wixii meeshii keenay isku darka keenay soomaalida calanka u keentay waxayd in 5 Soomaaliyeed helo. tiisna way ka baxday 5 Soomaaliyeed. Jabuuti halkaasay iska fadhiisatay, NFna way iska fadhiisatay, Ethiopia way iska fadhiisatay. horta Soomaali weynta la sheegay waa 5taas. tii meeshay ka baxday labadayni isku tagaa maanta Soomaali u foolxum. labadayni u tagay ayaa Soomaali u foolxum. marka kuwa aad leedahay calan bay keeneen, haddaan ilaahay ka baqo cadaabta la geliyo oo lahaa yani mustaqbalkii caruurteeda 7 caruur la qaxay oo min 5 bilood jiro oo dib qur'aan galay reerahan la idilay. maantana waa ogti Somaliland iyo dadka u leeyay dadka never again. taas aad wax ku tashan haddaad leedahay 5 Soomaali baan keenay way watay waa diyaar baan nahay, laakiin Soomaaliya wax inaga dhaxeeyo walaalnimo iyo darisnimo oo military back wada yeelano haddii la helaa oo say iska diriifiya isku furnaano waa ogolahay. laakiin mar baynu ku jabnay wax aan loo bislaan idinkaa maanta u baahan yahay midnimo samaysaan oo 5 dowladood samaystay. horta bartaamide aniga waxaad iga gelin lahayd adoo midaysan oo 5 madaxweyne lahayn muqdisho oo farmaajo xukuumeeyay iyadoo is xukumaysa ayaad iga helay.
oo waana kan waxma wada yeelanaa maxaynu talnaa laakiin adigoon jirin oo maanta shan madaxweyne la ilaahagani oo wada equal ah taa horta hagaaji tan anaa gacanta kugu hayee haddii aanu independent oo ikhtilaaf hele xitaa aad isnaa waxay wadayaasha waynu noqon kartaa laakiin horta maanta waa inaad xoogga saartaa sidii soomaaliya loo heli lahaa soomaaliya si loo dhamayn lahaa oo soomaaliya administration midaysan lagu samayn lahaa taa ka fekera ha ka fekerina soomaaliya si loo keeni lahaa shaarka iyo surwaalka ha isku tolina shaarka iyo surwaalka ha isku tolina taas waynu ka tashanaa war sidee soomaaliya loo sameeya oo dowlad midaysan oo magaalada decentralized ah oo county-yaal leh sida Kenya oo kale on the states federal states waxa samaysay federal states ba samaysay federal government waxa samaysay inaga Soomaaliya confederation in lixdankii laga hadlaabay laakiin qabaa'il samaysay ismida ya federal government madaxweynayaal samaysay gudoomiyaha lama maqlayaan filayaa waxaa soo galay waxaan doonayay inaan inta waan ku maqlaya go ahead gudoomiye dhamayso waan ku maqlaya go ahead okay intaanan xildhibaan goodax naga tegin waxaan doonayay xildhibaan goodax inaan hadalka gudoomiye kaga soo celiyo aanu doonayn inuu de meesha caawa waxa noo balansanaa laakiin maadaama eliidka muqdisho jooga xildhibaan goodax dhowr jeer ayuu gudoomiye Faisal u dhigay inay failure waliba kuwa muqdisho jooga failure inay dul taagnaadeen waayeen idooda maynan xitaa ilaa waxa muqaddas una diiday in muqaddasnimada laga tago Soomaaliland nafteeda la garto maadaama ay yimaadeen dad Soomaaliyeedna ay yihiin wax weyn dhulkan ay la guureen in eliidka muqdisho ay gartaan inay fikrad cusub la yimaadaan halkan la taagan yahay ka tagaan ay dhahaan maybe way tegi kartaa waddan way noqon kartaa xildhibaan goodax imika waxaa tiri adar waxa wey xildhibaan goodax baa weydiinaya gudoomiye xildhibaan goodax imika waxaa tiri in negotiation cusub la galo negotiationkii federaalka la galay ayaa caawa qof baa waxaa la leeyahay wuxuu la cararayba wixii lagu heshiiyey yaa hadhow garantii siinaya iyaga naftooda labada arrin eliidka failure-kooda inay ka tagaan muqaddasnimada iyo tan failure tan qofka haddii xitaa heshiiska qof uu la carari karo xildhibaan waa mahadsan tahay runtii muxuu ahaa aragtida gudoomiye Faisal waa ixtiraamaya waana qadarinaya maxaa yeelay wax muuqda ayuuba ka hadlaya moogtahay uu leeyahay dhibkaasaa jiro laakiin waxaad ogaataa horta hadduu dal dumo yani kabsashadiisa dariiq dheer loo maraa marka waxaan aan arkayno oo ama qof xukunka jeclaysanayo raba in lagu kor dilo sidii waqtigii maxamed siyaad ama muxuu ahaa tahaddan hortaaganba waxaa keeno qarindunka ayaa keenayo anigu waxaan dhihi lahaaba anoo fahmayo dareemayo aragtida waqooyiga runtii garaasho badan ka bixinayo shakhsiyan haddana iyaga laftirkooda waxaa mas-uuliyad ka saaran tahay sidii ay qarankan dumay laftirkooda hadda iyagaa maanta saan qiyaasaa ina dhaamo sidii muxuu ahaa aan leeyahay marka inay gogasha la wareegaan muxuu ahaa hadiiba wax la badbaadin karo gogasha hargeysa la geeyo iyagu ajandaha ay hormuud ka noqdaan hadafkuna uu yahay in muxuu ahaa hadday dan ku jirto muxuu ahaa bikaan waxaa aaminsanahay dan badan ku jirto ama dhaqaale leh ama geopolitics leh ama waxaas ayaa ku jirta ayaan leeyahay iyagu way khilaafsan yihiin waxay leeyihiin war dantaas la sheegayo ka weyn dhibka ka imaan karo maalin dhaco waa point sax oo la fahmi karo laakiin haddii iyagu sidii shalay markay calanka iyo wanaag ayay ula yimaadeen odayaal berigaas joogay oo allah naxariista hadda geeriyooday
maraan la sheekaystay xitaa condition la-aan ay wax ku wadeen maanta waxaan aaminsanahay arrintaas haddii dan loo arko in labada dhinac ay wada danaysan karaan midnimadu ay wax dhali karto bal horta weli lagu middaynay in lagu dayo muxuu ah weliba kalsoonida waxay ka imaanaysaa iyo garantoor waxaan noqonayo مثلا wax naga dhaxeeya haddii xagga jiraan oo kasoo qaba caasimadoo kale xagga ay jirto muxuu ah haddii madaxweynuhu mar walbaba waqooyi yahay kaa dhex gala goodixii horta goodixii mar wasiirka noqdaa cabdilaahi berigaas aad joogtay wasiirka ka noqdaan la dhashay anna wasiiraan noqday 3 jeer wasiir noqday waa xildhibaanka hadda jooga cabdilaahi goodax barre waa xildhibaan ka soo gala gobolka hiiraan magaalada beledweyne ka soo gala bal goodaxow beledweyne administration lahayn maamul lahayn beledweyne ilaah baan ku dhaariye markaasaad somaliland ka hadlaysaa war hurta gurigaa hagaajiso markaad gurigaa hagaajisid eed dowlad samaysatid soomaaliya ayaad i odhan karta waana kan walaale wax muuqda yeelan karna adigiibaa maanta guul baraalaya kan la yidhi hir shabeelle loo dhiibay ayaanu beledweyne tegi karayn beledweyne jabuuti waddanka yaraa jabuuti ayaa idi ilaalinaya ilaah baan kuu dhaariyay horta adigu wax noqo intaad somaliland aad haweysanaysa wada hadaladeeda waxaan ku yidhi war ujeedadii ina keentay ismidaysa meesha way ka baxday ujeedadu 5 Soomaaliyeed baan ku yidhi ujeedada meesha way ka baxday deerta wax interest maanta am Soomaali ugu la tagnaa ma jirto laakiin inaan dawlado walaalo jaaran noqono sida adduunka dhan carabtoo kale jaariyiin we're ready laakiin inaan mar dambe talada caruurteeda inaan cid kale la yeeshaa xaaraan bay nagatay qaladkaa 60kii dhacay waan saxina insha Allah ta'ala never again laakiin diyaar baa una idikana inaan wax idala qabano